kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada falaaqeyn kooban oo maanta kaga hadli doono xaaladda degmada Boorama ee maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnayd iyadoo labadii maalmood ee la soo dhaafayna gudaha magaalada Boorama ku xirnaa mid kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama wariye Axmed Deeriye Ceeltiro oo kamid ah saxaafadda magaalada Boorama ayaan maanta ka wareysan doonaa isla markaana wada falaaqeyn doonaa xaaladihii ugu dambeeyay degmada Boorama wariye Axmed ugu horeyn ku soo dhaw wad maasantahay Cabdilaahi Daahir Wacays haddii aynu eegno khilaafyada degmada Boorama labadii maalmood ee ugu dambeeyay oo habeen hore ay ahayd waxa saldhiga dhexe magaalada Boorama lagu soo xiray xildhibaan Rabiile Xaajaabay oo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Boorama xarga xildhibaanka waxa ka horeeyay Cabdilaahi sidaynu wada ognahay khilaaf hursan oo u dhaxeeyay xubnaha golaha deegaanka ee degmada Boorama taas oo 28kii bishii July ama June uu shaaciyay xildhibaan Axmed Khayre oo kamid ah golaha deegaanka degmada Boorama xildhibaanku shirkaasi jarayd waxa uu kaga hadlay 20 daqiiqo oo uu kaga hadlayay xaaladda ay degmada Boorama ku sugan tahay khilaafka degmada Boorama ee ragaadiyay kala fadhiyada golaha deegaanka degmada Boorama oo baaqday xildhibaanku sida gaar ah waxa uu sheegay in xildhibaano gaaraya 8 xildhibaan ay soo bandhigeen inay dalbadeen in kala fadhi la qabto golaha deegaanka degmada Boorama ay ku dalbanayaan iyadoo uu sheegay in kala fadhiyadii ay golaha deegaanku ay si cad u baaqdeen ayna maayirka ay ka dalbadeen inta ka bacdi marka aanu halka ugu tawaagweynay waxa aanu 13kii bishan 6aad 2022 aanu dalbanay kalfadhigii caadiga ah oo muddo dhaafay runtii kalfadhigii caadiga ah oo muddo dhaafay marka aanu dalbanay wuxuu maayirkii si ku tumasho sharciya u diiday oo uu qaban waayay oo fulin waayay waana tan kalfadhiga waxa dalbaday waliba 8 xildhibaan oo absolute majority ah sidoo kale waxa jireeyay khilaafkan golaha deegaanka degmada Boorama isla maalin kadib waxa la qabtay barnaamij isla xisaabtana oo ka dhacay hotelka Rays ee magaalada Boorama kaasi oo su'aalaha lagu weydiinayay waa su'aalaha kadib waxa hadlay isagu xildhibaan Rabiile Xaajaabay oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boorama wuxuu sheegay in barnaamijkaasi saxaafadii iyo golihii deegaanka aanan laga qayb galin wuxuuna sheegay in aanan lagu tilmaami karin in uu barnaamij isla xisaabtana kula xisaabtanayo waa anaga kaasi dadweynuhu dhageysan waxa qabatay iyo aqlay laakiin been documentary wax kala sheegin isaga doortay kuwii doortay ayaa maanta isaga u bedelaan doonayay waxayna boorka isku qarin waxa kale oo Rabiile isla toddobaadka gudihiisa waxay soo sheegay in golaha deegaanka Boorama khilaafka ka jira aawadeed uu sababi karo in mooshin xilka qaadisa ay keeni karaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama wuxuu si cad u sheegay in golihii doortay maayirka degmada Boorama ay hadda dalbanayaan inay iyagu ay xilka ka qaadaan jacayna ka jawaabay maayirku boor isku qariyo maaha arinta uu ka hadlayo isla xisaabtan uu ka sheekaynayo isla xisaabtanka qoraalkan ugu sheegnay anagu waxaan leenahay fadhi furan wax laga hadlay fadhiga furan baa ugu badan fadhiyada qabanade fadhi furan waa fadhi ay warbaahintu ka soo qayb gashay anu ma arag isla xisaabtan golihiina la diidan yahay warbaahintiina la diidan waxa isla xisaabtan loogu yeeri karo ayaa la yaab leh anagu warbaahinta channel aan fariinta dadweynaha marina weeyaan dunida live ku lagu jiro maanta qof walba mobilkiisa ku duubay dhacdo ya in golaha deegaanka waxay ka sheekaysanayaan dadweynaha matalaan gaari wada horta waa yandar sidoo kale waxay soo shirarkaasi iyo khilaafaadka waxa dhex socday shaambad golaha deegaanka degmada Boorama la samaystay iyo cid samaysatay khilaafkaasi wuxuu sii sababay in xildhibaan Rabiile oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boorama saldhiga dhexe ee degmada Boorama lagu xidho xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama oo aan la xiriirnay qaarkood waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin xarga xildhibaanka wada hadal iyo waan lagu wado balse dhinaca kale waxa isagu hadlay xogayaha tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta xisbiga mucaaradka ee u cid siyaasi Cabdi Axmed Wali nin lagu magacaabo wuxuu sheegay in xarga xildhibaanku uu salka ku hayo khilaafka golaha deegaanka una ka dambeeyo duqa degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame xarga xildhibaanka waxa ka dambeeyay sidoo ii sheegay oo amarka bixiyay maayirka magaalada Boorama waxa nasiib daraa ayaan daraa in maayirka magaaladu uu xidho xubin kamid ah golihiisa deegaanka
kolkaa ilaa imika xildhibaankii waa xidhan yahay xildhibaanadii golaha deegaanka degmada boorama waxa iyagu wadaan kulamo gaargaara iyagoo xildhibaanada qaarkood ayba magaalada ay ka maqan yihiin waxaana ay bulshada boorama ay aad ugu dhagataagaysaa halka khilaafkan uu ku dambayn doono iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay kolka waynu ogaan doonaa khilaafkan xiriga xildhibaanku halka uu ku dambeeyo waxa se socda waan xildhibaankana la doonayo in lagu soo daayo golaha deegaanka degmada boorama in la iskugu soo dhaweeyo balse waxay soo taariikhaan marka la eego golayaasha deegaanka golaha deegaanka degmada boorama muddo sanada run ahaantii waa ay aamusnaayeen lama sheegin wax khilaaf oo dhexdooda ka jiray wax dhexdooda oo taagan ama shirir jaraa'id oo ay kaga hadlayaan waxa muuqatay ifafaala ah inay dadku ka rajo qabeen golahan inuu golo dhalinyaro ah oo aqoon-yahan u badan oo jaamiciyiin ay u badan yihiin dhammaantoodba ay ka wada dhex muuqdaan degmaduna ay horumar u jaahaysanayso balse imika waxaad malaynaysaa in khilaafkaasi waxyaabo badan oo wada shaqayntii golaha ay waxyeeli karto in haddii se xal laga gaadho oo waara oo golaha deegaanka degmada boorama khilaafkoodu ay xalliyaan waxaa dhici karta in gebi ahaanba ay degmaduna ay iyo goluhuba ay si wanaagsan ay horumarkii looga filayay ay u qaban doonaan أحمد waxaa jira warar sheegaya in ilaa hadda lagu daba jiro xildhibaano kale oo iyagana la rabo in la xiro kuwaas oo la xiriirinayo xariga hadda la xiray xildhibaan Rabiile arimahaas maxaad kala socotaa waxay soo wararkaasi way soo baxayaan balse laamaha amaanka iyo laamaha garsoorka oo la xiriiray gabi ahaantood ba arimahaasi inaan wax ka weydiiyo ilaa imika way suroobi waayeen shalay ilaa intii ka horeysay waan ilgaaraan ku hayay laakiin haddii xildhibaankaasi ama xildhibaano kale la sii xiro oo xarigu sii bato goluhu waxa khilaafka ayaa sii kordhaya kolka waxa imika rajada kaliya muuqata waan golaha deegaanka ee degmada boorama ayo mas'uuliyiin iyagu bulshada qaarkood oo isxilqaamay ay wadaan ayaa muuqata wacayso waa maasanta